qaar ka mid ah hooyooyinka ku nool magaalada Mandera ee ka tirsan beesha Dagoodiye Saransuur ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay xarunta laga aramiyo ololaha doorashada ee musharax xildhibaan Maxamed Faarax Bardad ayaa si wada jir ah ugu dhawaaqay in ay gacan siinayaan musharaxiinta xisbiga Jubilee. haweenkan oo horkacayay Marwa Xaliima Jeelle ayaa ka codsaday dhammaan hooyooyinka Dagoodiye in ay taageeraan wasiir Aadan Jarri iyo mudane Maxamed Faarax Bardad. hooyooyinkan ayaa sheegay in ay dawladda hore ku guul dareysteen haatan ay doonayaan in ay helaan dawlad cusub oo wax u qaban doonto. magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdi Cabdullaahi Xuseen waxaan ka hadlaynaa waxaan nahay beesha Dagoodiye gaar ahaan beesha Jibraa'iil waxaan dhisaynaa oon isku raacsanahay ninka la yiraahdo Aadan Maxamed Jarri waxaan nooga xiga oo inbana ah Maxamed Faarax Bardad insha Allah waa soo gelinaynaa waxbana ka reeban mayna waxaana dacwo ka nahay ninka la yiraahdo muxuu ahaay Cali Ibrahim Rooba waana hasuuqay 5 sano oo haystay waa 5 sano oo maxaan ku dhahaa aan sano jir aan ku noqonay ma rabno mana doonayna insha Allah waxaan codsanaynaa maxkamadda heeg inaan la tagno oon iska dacweyna yaan rabnaa maxaan ku dhahaa gacanteena kor Allah ka dhigo Aadan Maxamed Jarri Maxamed Faarax Bardad Mandheeranad waxaa kale oon ku darsanayaa oon sheegayaa waxaan deganahay locationka la yiraahdo Noobey wada ma qabno isbitaal ma lihin meel aan ku hansano ma leh maxaa la yiraahdaa biyo ma qabno waxaa intaas baa suuqaad waxaa noo geystay Cali Roobow gadaal ay safiiri ina dad nool oo hadli kara oo maxkamad geyn kara uu ka dambeeyo waxaa la yiraahdaa magacayga Ruqyo Cali Faarax waxaan nahay beesha Dagoodiye gaar ahaan beesha Jibraa'iil Dagoodiye oo dhan aan ku idilnahay waxaan ka eed sheeganaynaa ninka la dhacal rooba maxay ahayd gafanagayna waa Maxamed Aadan Jarri maxay ahayd gafan ambigayna waa Bardad iyo intii muslim oo soo raacda aan ka codsanaynaa muslimiinta dhan inayna taageeraan dhisaan xisbiga Jubilee ay soo raacaan mid kale ninkii Cali Rooba ahaa oo mar 5 hore aan dooranay 5 kalena aan dooranay dib weyn ayuu noo geystay annagoo maaragtay ciidan beesha dhan oo Dagoodiye ah maxay beesha Dagoodiye xaafadda suuqa xoolaha ay mugdi tahay ayna koronto fiican lahayn ayna biyo lahayn ayna maaragtay ay lahayn wada la mar ayna lahayn taas ka sakow intaas oo meelood ay beesha Dagoodiye hadii aan nahay nagala jibiyay 3 meel aan nagala jibiyay meesha afraad hadda nagala jibiyay waa lagu xasuuqay askar baa nagu soo bixiyay waa dharka hataa gabdhaha qaar laga jijeexay aniga naftayda gacantayda bidixda waa taas ay u jaban tahay baloodihi ayaga hay wadada ay walaadihi ayaga saliga ku xiran ilaa hadda cidna kama waramin markasta codsi waa dirsanaa marka Cali Rooba dib badan ayaan ka sheeganaa Cali Rooba waan dacweynayna Ali macbuudka ayaan ku dacweynayna waan haysanaa mana cafin doono marka xisbigiisana waan ka baxnay Jubilee dhisayna Maxamed Aadan Jarri dhisayna salaamu calaykum wa calaykum salaam waxaan ay gabar Soomaaliyeed waxaan ay beesha gaal jeclan ka soo jeedaa waxaan taageero u muujinayaa Bardad oo noo MB naga gabana naga waxaan ka rabnaa Jarri waxaan dacwo ka nahay Cali Rooba wuxuu musuqmaasuqay 5 sano haysto waan ku qasaarnay wax alla wuxuu noo qabtay malaha wada ma haysano maxay biyo ma haysano meel walba ka ciilanahay suuqa xoolaha ku ganacsiina taa uu haystaa boosaska naga aan qabsanaa taa uu haystaa wax aan ku qabna Cali Rooba manihin maxarada maxkamadda heeg inaan istaagnaa rabnaa dacwaan ka nahay maxay ahayd Cali Rooba macaaradkiisa u horeey anaga nahay waxa MB noo ah Bardad MB noo ah waxaan ka taaganahay Mandheera North ka taaganahay MB ganaga waxa waay Bardad علي لا سرور عمر قبلها مقالة تولد نوي دكان ولي بجارحان سوق حلا قبلها كوا جناسده وعنولي دان كجرا على وأنا أحسن نوم قلن قرآن أنا مسوقاية ما ندرس دون إن شاء الله وداس إلى إرادة أنا وحوا قفنا جاينا محمد آدم جري قفنا كحجين كاينة أبي ظاهر إنبي جاينا معلم فارح بردت Cali Rooba anaga suuq in ku ganacsanayna nagarara asba nagarare oo meel asilay oo nijay anaga agoomeelay qabno gabdha agooma ay nagu jiraan waxa la dhigi jiray kuwa masaakiin ay nagu jiraan wiligiisa wax kuwiisa ma arkin wadan oo ma hagaajinin neebo iyo bisley waad aragteen aan u malaynaa kulleeyta qofka indha qaba neebo iyo bisley reer neebo in kuraa ay rideen reer bisley in kuraa ay rideen bisley xaafadaha marka la maraa xaafad walba laamiya saaran xaafad walba farish ay cabtaa anaga booyid waa wayne daro markay biyaha qaalaawayeen dadka masaakiinta biilaana ilmooda oonan u bii gaar ayagana farishka beeray ku abuurtaan oo maxaa la dhigi jiray waxaad malaynay inaa 24 ka xaafadooda roob ka daas malaynay maalinkiin dooranaynin ballan naga qaaday
inaan Soomaali kala bixinaynin oon islaamnimo dadku u doornaa kitaab muslim asku dhaartay dhaartiideed horta ilaa maalinta yoomal qiyaam waa u haysanaa waana la soo istaagi doonaa maalinta yoomal qiyaam saas bislay doog ugu dhigi boolada anaga aan degan neebayn as ugu dhigi maxaa la dhihi jiray as dooglaan iyo biilaan iyo wadalaan as u dhigo haddana anaga noo rara ilaahayna kama aqbalin mana guuri doon insha Allah waana deganaan doona waxaana soo gali doona dhibid gaafanaa jari aad iyo aad anagana biigelin iyo maxaa la dhihi jiray farash noo lagu sameyn doona ilaahay aan ka rajayna gaafanaaga Maxamed Aadan Jari soo gali doona insha Allah saan ilaahay ka rajaynayn aniga waxaa la dhahaa Xaliima Jeela waxaa lay ama aqoon gada ama ugub maala annaga waxaan rabnaa sanadkan Maxamed Aadan Jari inaan soo dhisno gaafanahayna annaga horta beesha dagoodiye ah oo wada dhan 10 dagoodi wax naga maqan ay jirin oo wax naga maqan ay jirin waxaan rabnaa inaan soo dhisno Aadan Maxamed Jari inaan soo dhisnaan rabnaa gaafanahayna waa mahadsan yahay wuxuu noo qabtay ama waxa noo tara ama u soo noo tirin waqtigiisa waa soo dhamaystay Maxamed Aadan Khaliif kistaan harti oo kala oo bulaboosaska inuu ku darsan ama horta ku raaw ma hayna ma doonayna inaan dhisnana diyaar u manihin mana soconayso Maxamed Aadan Jari welcome soo dhawaaw guri hooya dhista waxa meesha dhan wada tuurin waa gabdhihii kuraaga laga rabay oo maxay tahay dawladda dhisi lahay sanadkan inay dhisaan mar rabaan UDM inaan dhisna diyaar uma nihin annaga waxa waa xisbinaga Jubilee inaan dhisna rabnaa Maxamed Aadan Jari welcome soo dhawaaw wadankaada ku soo dhawaaw dalkaada ku soo dhawaaw dadkaada ku soo dhawaaw shantan insha Allah ilaahay idinkiis waa ku soo dhisay waa soo galaysa shanta dambeena aad soo dhistaa laga rabaa Maxamed Faarax Bardad waa MPgayga markaan dawladdan cusban soo dhisan rabna insha Allah gaafanayga waxa waaya Maxamed Aadan Jari dhibid gaafanaygan waxa waaya Abey Daahir Carab magacayga waxaa la yiraahdaa Xaliima Xasan waxaan ahay hooyooyinka dagoodiyo say u dhan yihiin 10 iyo beesha Saransooro iswata dhamaan say u dhan yihiin ayaan meesha ku taaganahay waxaan dhisaynaa gafanaha Maxamed Aadan Jari iyo MPga Maxamed Faarax Bardad abay dhibil gafanaha abay Daahir Carab marka waxa waaye meeshan waxaan iskugu imaanay sanad horaan qasaarnay waa qasaar waxaas waan qasaarnay anagoo haweenka dagoodiyo oo dhan saan u dhannahay dhul ayaan qaadanay dhulkeeni waa la dhacay dhulkooda waa baxsadeen garii dagoodiyo murula dhulkooda waa qaybsadeen markii la qaybsaday dhulka anaga loo imaaday dhulka anagii ayay haddana xirteen marka sidaas darteed waxaana madaxweyne ka ah Cali Rooba ayaa madaxweyne ka sababta xooga naloo sheegtay gaanjiyo naloo soo kaystay hoori guriga la jijibi marka sidaas darteed ayaa bukuraan nuq nooga siinayna mana dooranayna waxa dadka doorana waa haween waxa guriga hoos ka dhista waa haween anaga hadaana haweenkii dagoodiyo hooyooyinkii dagoodiyo isku xiran saan u dhannahay kuba ma siinayno iyo tiimkiisa iyo wixiis wataba ma rabno kuma raacsanin Cali Rooba waa tuug walaadar waana dhacay dhulkaynaas dhacay 24 ka sac waana baarka waana suuqayna waa ku raagayn hadii aan mar hore 5 sano ku raagayn anaga aan ku dhisin marka horeba waxa waaya anasoo firfisa la dhaho oo la tala yeela anaga aan soo qaadnay oo magac u yeelno oo kursiga saarnay maantana waxaas ismuujiyay in anaga hooyooyinka dagoodiyo uu nugumaada dhulkayna xoog ku qaata dawladda noo soo kiraysta dadweynaha dhan anaga ceebaysta anaga shaati dawladda noo soo xirta dhulkayna xoog ku qaata dhulkayna barabagaama haddana imbiga aswata haddana inaan noo dhaca halaha noo heeraad rabnaa hadda ka daba waxaas noo yahayna malaha dawladda cusub la dhisayna mana doonayna anaga hooyooyinka nahay hooyooyinka hadii nahayna shala soo dhisna maanta kuma jirno Allah inka Allah waxaana ka soo jeedaa meesha la yiraahdo Bibon Border Point 1 aan ka yimid Cali Rooba anaga ma wana naqaana saan reer Bibon u nahnay maxay inaan reer Soomaali nahnay inaan reer Kenya nahnay ma bana kala ogo waxaas noo qabtay malaha baloodiyaan noobay kula heennay baloodii ayaka hay waxa isku wareeji salagaas ku wareeji Cali Rooba oo mana baahnin 5 sano waxaan dhisaynaa Aadan Maxamed Jari
iyo ambigaynana waxaa waaye Bardad Maxamed Faarax Bardad dibid gaafanayn waxaa waaye Cabey Daahir Carab anaga dagoodi saan u nahnay locationka Neeboy hal wiil oo council ah noo taagan dagoodi oo meel walba joogtiin dagoodi waxa la waa doqon nin walba meel asu jiidan Allah waxaadna wax jira maaha hal council ah Neeboy noo taagan anaga councilhaas waxa la Cabey Barre Cilmi Allah Cabdi Barre Cilmi Allah councilhaas meel walba joogtiin ninkiin raamo aadi karin oo kuraa ka saaridi karin council ah Neeboy noo taagan locationka aan dagoodi ahaan laana wiilka noo taagan Abdahab Barre Cilmi Allah ninkiin ma aan aqaanin habarta aan la soo socdo